waxay South Africa timid iyadoo hami iyo rajo fog kale nolosha balse manaxayaal aan bani aadanimada iyo barnaamijyada wax ka aqoonin ayaa nolosha u qoonsaday oo waxa ay rasaas uga dhufteen madaxa xilli ay ku sugneed xaafadda Filibi oo hostimaada magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika. waxaan ka hadlayaa Carfoon Sheekh Cali Allah u naxariistay oo heed hooyo Soomaaliyeed oo aad looga wada naxay geerideeda waxaana salaadii janaasada loogu oogay barxadda masjidka Salaaxudiin halkaasi oo ay isugu yimaadeen boqolaal dad ah oo ka soo qayb galay salaada janaasada waxaana lagu wadaa maalinta berita ah in meydkeeda loo qaado dalkii hooyo si loogu aaso haddaba dadkii ka soo qayb galay salaadii janaasada ayaa dareenkooda ka hadlay walaashana Allah u naxariisto wiilasha naga xanuunsan Allah noo caafiyo dhibaatada ku noo wada ilukeysiga jooga ee lacagta aruuriyo ku loo aruurin Allah naga qabto wax Allah la wixii problem u hayo Soomaali Allah ka qabto Allah na mideeyo Allah u naxariisto walaasheen waa dhimatay diiwaa ka tagtay jinnimaci Allah geeyo wixii dilan ummadda Allah ka qabto jinnimaci Allah geeyo sabir iimaan gabadheena dhimatay Allah u naxariisto aljuno Carfoon Sheekh Cali aljuno Allah ka dhigo gurigeeri guri jira Allah ka dhigo makaan aamin Allah ka dhigo adwaa faaqda aakhir makaan fi Allah geeyo الجنة الله كديق الجنة الله نحرست الدنيا قروا إلهي صبر إيمان صادقة كلنا عليها عفي مسامح عرفون شعال إلهي ونحرست قبرنا واسع الله ودقه ونا إلهي قاعدنا فرد قبرنا قبر واسع الله ودقه إلهي واسع ودقه الله ولا شيء عرفون الله ونحرسته قبر كذا الله واسعيه كتاب كذا نمدكت الله كسيه إن شاء الله تعالى ولا شيء عرفون شعال إلهي ونحرسته مرتلا جعلي أنا الله خليه كتاب كذا قعنت مدك الله كسيه أولادي كتكتن إلهي عاف ما طابسي الله خليه مسلمين تحنون سنة إلهي حنوك قاضي ما تدنا هيستنا الله نقدر قاضي إلهي ونحرسته ولا شيء قبر كذا الله واسعيه أهل الجنة الله كدقه أنت دي مثلا الله ونحرسته أنت بختنا الله عافيه ولا شيء الله ونحرسته صبر الله نقصيه أنت كتكتن الله حسن الله نقدقه أنت ودك هاجوكتنا وإسلامك الله كأمان سامي. إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته ولا شيء نعرفون الله نحرسته قبرنا روضة من رياض الجنة الله ودقه أهلك كتكتني إلهي وشبر والله كدر الله كسبر سي دمان مسلمين الله كسبر سي وذكرنا إن شاء الله ودي لقي إلهي جنات الفردوس الله قي. لانك كلام محمد عبد مالن muwaadin u dhaqdhaqaaqa dadka ku nool lokeeshinada ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed guud ahaan ee dalkani Koonfur Afrika ku baraarujiyay in aysan sharciyadooda marnaba aysan ka tagin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun galabta waxaan halkaas u nimidnay inaan janaasada ku dukanno walaasheen Carfoon Sheekh Cali oo gacan ka daran iyo xaq daran ay dishay oo maartay geeriyootay maalintii Sabtida bisha 22 ahayd way ka dhiyaan la galay waxa dantu maartay ilaahay baday in maanta halkan janaasada ku dukan ayaan isugu yeelatay walaasheen maalintii dhimanaysay barqada ay dhimatay sidaa darteed maalintaas waxaan aasinay laba miido kale ayaan aasinay wiil gabar kale gabadha kale waxaa noo sheegay in iskeed u xanuunsaneed laakiin muddo 25 cisho ah wadankan ay joogtay sidaa darteed xataa taqaatiirtu waxay la wadaageen gabadhaas xukuumadda in kaliya aawadood ay u dhimatay isla markaana ay u dhalatay bay ku dhalataba laakiin waxaan aad uga xunahay taqaatiirta Soomaaliya joogtay inaysan gabadhaas ilaa in muddo ilaa qarnigaas ay jirtay inaysan waxba ka sheegin daawadeeda waxaan codsaynaa marka taqaatiirtu fadlan hadje garayaano qofka jiradiisa yaan maartay kiniyaasha qaarkood iska siin iyo iska fududeysan sidoo kale maalintaas waxaan la aasnay gabadhaas nin la yiraahdo waxa way Cabdifataax Siyaad Cabdi asagana muddo 2 bilooda ayuu wuxuu ku jiray meesha la yiraahdo mooshariga meesha qowraha maartay inta la geeyay oo bas lagu hayo meedadka qolada dawladda ku hayaan oo mooshariga sidaa darteed waxaa kalifa 2 bilood inuu meeshaas ka yaalo isgaarsiin la'aan iska warqab la'aan ayaa dhigtay marka insha Allah taala waxaan uga digaynaa dhalinyarada in aan aqoonsi la'aan la socon haddii aqoonsigiisa la haylahay way sahlanaa lahayd wayna fududaa lahayd walaashan Allah u naxariisto ahlu janna Allah ka dhigo ducada loo duceeyo Allah u aqbalo ridaha ilaahay Allah ku maneysto qabrigeeda rawda min riyaadil janna Allah uga dhigo ugu dambeyn waxaan wax ka weydiinay Ibraahim Xidigow oo ahaa xaajiga marxuumadii geeriyootay oo inooga warbixiyay sidii wax u dhaceen iyo sababta ka dambayso in marxuumadda baydkeeda dib loogu celiyo dalkii hooyo waxa uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ma fa'ala al-jalil fa huwa jamil dhamaan
ummadda Soomaaliyeed geerida tiiranyada leh ay nagala qayb qaadatay waa ku mahadsan yihiin. gabadhan gabar Soomaaliyeed ay ahayd, qof ahlu khayra oon wax badan ka aqaano ayay ahayd. ilaahay jannatul firdaws al-a'la ayaan uga baryaynaa. ani ahaan weligay waa u ducay jiray, wax la soo koobi kara maaha intaan iska naqaano. xaajiyadayda khayr ilaahay jannatul firdaws al-a'la ha nagu kulmiyo. waxay u dhaceen gabar walaasheeda oy dad isaga dhow yihiin ay caawinaysay, ay dukaankeeda alaab isula sideen. subaxdii xaafadday iga tageen Lamadoora, anna meel kalean aaday. mar duhurkii lagu jiro anoo masaajid iridda ka sii gelayo ayaa taleefanka ii soo dhacay oo gabadhi waa dhimatay liiliya. salaadaydan tartiib u dukaday, waan soo baxay. isbitaalka ku yaala jasbileyna loola cararay, inay dhimatay camalay u malaynayeen, laakiin way nooleed. meesha waa lay ogolaaday inaan galo iyadoo oksijiin ku xiran yahay ayaa lay korgeeyey, laakiin kooma ku jirta oo nuuxsanayay. waxaa ilaahay noo qadiray markii hoogaa dambe habeen oo la gaaray 9 saac ama 8 saac hoogaa natiijo xumay dhaqaatiirtii ii muujiyeen. anigana waa sabarsanaayo alxamdulillaah, ilaahay xaggiisa waxay ka yimaado waan ku sabarsanaa. qadartana waan ku sabarsannahay, raalliyaana ka nahay oo qadarta iimaankay ku jirto. alxamdulilah. marka intaas waxay muujinaysaa gabadhan inay ahlu khayr ahayd, in la jecelaa. qaadunay ahayd oo qaadun Soomaaliyeed ay ahayd. alxamdulilaahi waana ku sabarsannahay. adduunka meel walbaa looga soo duceeyey, meelaanan duca looga soo akhrin. meeshii barakeysneed kacbada duca looga soo akhriyey. adduunka quraamo fara badanaa meel walba looga soo duceeyey. culummada Soomaaliyeed oo idilaa u istaagtay, culummo Soomaaliyeed oo dhan u istaagtay, iyo Soomaali oo dhan aa u soo duceysay. hadda waxaa la go'aansaday in wadankii hooyo dib loogu celiyo, taasna ka dambeeyay marka wadankii Soomaaliya in dib loogu celiyo. annagoo yaryaro inaan dhimayno waa ogeyn, laakiin meelaan ku dhimayno ma ogeyn, maadaama aanan joogin waddankeennii hooyo. qofka markuu leeyahay oo dardaarmayo leeyahay wadankii Soomaaliya laygu celiyo, marka hore wadankiisa uu jooginba. ilaa qofka markii wadankiisa joogo maba ka fikirayo inuu dhimaayo og yahay, meel lagu duugayana markaas way isaga qanacsan yahay. annaga marka hadda ma ahayn, mar dhowna ma ahayn. annagoo yaryaraan ka sheekoosanay, waana xasuustay. qadarteedii timidna xasuustii way igu soo noqotay, waana ogaa. marka ballan aniga iyo iyada noo tiilay ahayd inaanan isku duugin meeshaan. hadday iga dambaysanay la xarbiso inay i qaado. haddii aniga aan ka dambeeyana qofka sheekada keenaba anuu ahaaye iyo iyadaba waan isla wadnay, dee aniga yaaba joogo mas-uulahay. alxamdulilah. marka saasay ku timaaday. yaad si gaar ugu mahadcelinaysaa? wallaahi Soomaalida dhan isku mid ay ahayd, 100%. Soomaalidoo idil dhammaantood si gaar ahaan ugu wada mahadcelinaa dhammaantood, sababtoo ah aniga igaga tiiraya badnayn. maxamed axmed siyaad, Soomaali Cable TV, Cape Town, Koonfur Afrika.